dal ay madaxweynayaal wasiiro taliyaal ciidan iyo madax sare ka yihiin dad lagu eedeeyo gobol falida ka dhana xuquuqda aadanaha gaar ahaan laynta ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku helaan xilal sare in ka badan 28 sano ayay Soomaaliya cagaha kula jirtaa colaadada deganaanshaha u diiday asaageedna ka reebay oo marba heer iyo magac soo maray mar waxay ahaayeen jamhadad qabaa'il oo xukunka ku ereyanaya dawladii kacaanka mar kale isla jamhadahaas ayaa gudahooda jifa isku laayay haddana hogaamiye kooxoodii ayaa soo ifbaxay magac diimeed ayaa dagaalka loo rogay 2006 ilaa maanta kaas ayaa socda dhammaan kooxahan waxa ay ka sinaayeen in dhiigdaadintu ay tahay wadada kaliya ee ay ku gaari karaan meesha ay u socdaan waa kursiga iyo xukunka hadda waxa heshiis lagu yahay dawladda federaalka waxaana golayaasha heer federaal ilaa dawlad goboleed jooga qaar ka mid ah dadkii sababta asaaska u lahaa kooxaha wali dagaalamaya iyo kuwii hore ee marxaladaha laga soo gudbay tabinteena waxaynu ku eegaynaa 5 qaybood oo ay maanta hoggaan iyo amar ku leeyihiin xubno hore qayb uga noqday laynta dad Soomaaliyeed ama amaradooda lagu sameeyay aqalka sare waxa ku jira 5 ilaa 8 xubnood oo ah qabqablayaashii budiga u ahaa burburkii dawladda dhexe hogaamiye kooxoodii boqolaal ama kumanaan qof ku faanay dilkooda qaar maxkamada la geeyo oo ka dhuuntay ayaa jooga wahaliyo taariikhdooda mararka qaar dib loo eegto Soomaaliduna waxay isku raacsan tahay inaan laga xisaabtamin wixii hore golaha shacabka 20 ilaa 35 xubnood oo soo aha hogaamiye kooxoodiyo xubno hore oo argixisada madax ka soo noqday ayaa ku jira kuwaas oo iyana dhinacooda aan leegin haybta qabaa'ilkana ay darajo sare ku soo helay 3 dawlad goboleedyada Axmed Madoobe ayaa mar soo noqday amiirka kooxda argagixiso waa madaxweyne goboleed oo aan dhicin xilligiisii boqolaal qof ayaa la dilay isagoo maxbuus kadib xabsi la geeyay oo ku yaala Ethiopia ayuu kaga soo baxay isagoo haysta abaalmarinta mudane baarlamaan ilaa uu qabsaday Kismaayo dhawaan waxa uu ka sheekeeyay taariikh hore oo uu ku cadeeyay in intii uu ahaa maxbuuska kooxdiisii al-shabaab ay dhaqaaleysiinayeen qoyskiisa inkastoo Axmed Madoobe sheegay inuu ka soo horjeeday fikirka kooxdiisii hore haddana xilligan oo Kismaayo maamulo waxa soo baxay eedan la xiriira in dad qaarkood la dilo ilaa maantadana aan jawaab loo haynin sifaha dilkooda iyo waxa ay galabsadeen aan ka haynay ka hor yimaadeen xukunka Axmed 4 golaha wasiirada ee hadda hogaamiye ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Aar 5 ilaa 6 xubnood oo soo dagaalamay qaarkoodna amiirra ka soo noqday kooxo diimeedyada wali dagaalamaya ayaa xilal sare qabtay wasiirka diinta iyo arrimaha awqaafta ee Soomaaliyada maanta waa Mukhtaar Roobow amiir awood badan afayaan idman iyo xogeeyad difaac oo haysta ciidan u gaara muddo dheer oo kooxdiisii hore ugu soo noqday maanta waa wasiir intii uu ahaa afayeenka kooxdan iyo sargaal haystay awood ay mar kooxdiisu ku faani jirtay waxa uu qayb ka noqday weerar bahalnimo oo lagu gumaaday shacab Soomaaliyeed fatwooyin caan ah oo dulalka lagu banaystay diiwaanka ayay ugu jiraan meelna kuma cadaynin calfis dalfasho iyo in cadaynay aragtidiisii hore ay ahayd mid xun oo aan saxayn 5 saraakiisha ciidamada gaar ahaan hay'adaha booliska iyo nabad sugidda waxa la rumaysan yahay inay ku jiraan shakhsiyaad kooxaha argagixiso hore u soo maray kuwaas oo hadda ka shaqeeya la dagaalanka kooxda sida ay sheegtaan Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay waxay ahayd goobta ugu badan ee geeska ku taala ay ka dhiceen colaadii ugu xoog badan waxa dhintay kumanaan qof oo dad Soomaaliyeed dhammaan dadka kala duwan ee dhintay dhinacyadii qaybta ka ahaa waxa la xaqiijinay ama la og yahay inaysan la kulmin maxkamad cadaalad ma jiro siyaasi Soomaaliya oo wali la horgeeyay maxkamadda cadaaladda adduunka ama tan Afrika waxa ugu badanna waxay tahay siyaasiyiinta Soomaalidu mar kasta ay dib u helaan xukunka oo ay ku helaan colaadii kala duwan ee ay ka shaqeeyaan taasoo muujinaysa in Soomaaliya soo socota isla xisaabtanku uusan wali ahayn sareeya 5taas dhinac ayaan ka soo hadalnay dhammaan dambiye ayay u tiirinayaan dadka Soomaaliyeed inay galeen kuwa ugu waaweyn waa dilida iyo gomaadid shacab waxayna qaarkood qirteen dambigooda ma jirto maxkamad iyo wax iska weydiin dib u raacasha qarashaduna ma ahayn mid cafis weydiisi uu la socdo hayeeshee waxa ay ku heleen darajeen iyo inay sareyn ama sab ku gaaraan gumaadka bulshada oo ay ka dhigtaan jaranjaro lagu gaaro halka loo socdo ee xukunka isa xisaabta laanta Soomaalidu caadada ka dhigatay waxa shaki lahayn inay abuurtay koox kasta oo xukunka jeclaysata inay digdaadinta u banbaxdo waxaana dad badan oo Soomaaliyeed aysan qariibsan karin in kuwa boqolaalka qof hal mar dila ay bari madax u noqdaan dadkii ay heladooda gumaadeen oo ay u khudbeeyaan